الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين ummadda muslimiinta meel kasta joogtaan gaar ahaan taageerayaasha asxaabta mucaaradka ah meel kasta ku sugan yihiin dibad iyo gudaha salaamaya fariintan maanta halkan aan idin soo marnay waxa weeye way dhamaatay saacadii inta badan aynu tirsanaynay ee aynu sugaynay way dhamaatay saacadii way dhamaatay 13 November baa la taagan yahay balantii inoo dhaxaysay inaga iyo qolada asxaabta mucaaradka gudoomiyaasha asxaabta iyo musharaxiinta iyo gudoomiyaasha waxba kama hadhin 12 dheeraad bay maraysaa waxaan idin sheegayaa oo aan halkan u soo fariistay maadaama ay saacadii dhamaatay waxa looga fadhiyaa mucaaradka iyaga waxa looga fadhiyaa qolada mucaaradka ah ama gudoomiyaha ahaado ama musharaxiin ha ahaadaan inay qaataan go'aan degdega oo masiiriya oo dadka u cuntama oo dhalinyarada iyo odayaasha qurbajoog iyo qolqoljoog ummaddu maanta way taagan tahay dhagahoodu waxay filayaan dhawaaq ka soo bixi doona labada gudoomiye iyo musharaxa xisbiga mucaaradka iyo rag kale odayaasha ah ee mustambeedka ah haddii waxba idinka soo bixi waayaan oo aan noqotaan buurtii dhashay irbadda waxaan idinka digayaa hal qof oo dambe ma arki doontaan oo idin taageera hal qof oo dambe oo idin taageera ma arki doontaan waa la iska tagi doonaa waana la idin nici doonaa waana idin tuuri doonaa waxaan idin sheegayaa 14 idinla gaadhi 14 haddii idinla gaadho waa idinla gaadhi kartaa laakiin idinla dhaafin suuqa waxa ku jirta way tanaasulayaan waxay qaadanayaan way noqonayaan ururada ka qayb galayaan wax la yiraahdo ururada ee Muuse samaystay taasuna waa wadkiinii labaad ma maqal karo dhigaha mucaaradka ma maqal karaan taageerayaashiinu ma maqal karaan annagu ma maqal karo odayaashu ma maqal karaan dhalinyaradu ma maqal karto waxaan idinka digayaa ma tanaasuli kartaan hal qodobna kama tanaasuli kartaan doorasho madaxweyne oo xilligeeda lagu qabto waxaan ahayn oo maanta ana maraya oo dadkana sugayaan ma jirto waanta intaasaan idin sheegay dadkii dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogana diyaar garooba waxa u diyaar garowdaan waqti adag oo Muuse la iskaga xoreynayo iyo dadka ku naaxay dhiiga ummadda ku naaxay u diyaar garooba ama hoog jooga ama waqooyi jooga ama buru jooga ama banaan jooga saacadii way dhamaatay halkaa waxa nagaga taala halkaa wadnaha waxa nagaga taala 13 November iyo inamada kibray ee naaxay ee ku naaxay dhiigga ummadda iyo cashuurta ummadda ee maalin walba TV la soo fadhiya in November maalmaha kale kama duwana waxaan u baahanahay in November maalmaha kale ka duwanaato oo ay noqoto mid ay ka shalaayaan ama ay ka ooyaan kuwa waxa ku hadlaya inta halkaas kaga baxaya reer Hargeysa la hadlaya waxaan leeyahay reer Hargeysa ina ka yar buurana buuni leeyahay ma ka halka fadhiya maalin walba ninka madaxda ah reerka asxaabta aaya reerka aaya odayaasha aaya yaan cidna dhaafayn waa mid soo kala afka laadka dhuftay ma weydin sanaga barco soo diraa aad iyo aad u salaamantiin waqtigu u dhamaaday waxa la idinka doonayaa go'aan ummadan u cuntaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh